haatan warbixin yar oo Ilhaan Cabdiqaadir Jaamac Guuleed afballaar ku saabsan wacdare ay ka dhigtay Kakuma ee xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya iyo calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaan meeshan in kugu soo gudbinayaa anigoo ah Guuleed Guuleed. Ilhaan Cabdiqaadir Jaamac Guuleed afballaar oo ku sugan xeryaha qaxootiga Kakuma ee dalka Kenya ayaa waxay maalintii Jimcaha ahayd iyadoo dhaba socoto masjid socoto ay la kulantay gabar Maasai ah qowmiyadda Maasai-da ee degto dalka Kenya. gabartani ayaa guntiga waxay ku xiratay calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ilhaan oo ka qiiratay arintaasi ayaa runtii waxay muujisay ficil ku dayasho mudan oo runtii tusaale u noqon karo sharafta iyo sumcadda calankeena uu leeyahay in ay soo celiso. Ilhaan ayaa mara ayadana guntiga ugu xirneed ayay ka soo sitay kadibna siisay naagtii Maasai-da ahayd markaas ayay kala wareegtay calankii Jamhuuriyadda maadaama calanka astaanta qarankeena uu yahay dal walbana astaan uu leeyahay qof walbana sida uu u sharfo iyo sida uu karaameeyo uu u karaameysnaado mise sida uu u liido uu u liidnaado. Ilhaan waa gabar